dadka la leeyahay waxay u socdaan oo tegayaan Somaliland haro qalalan haddii aad daan isku daydina ka qaadatid wax biyo ah oo ka helaysid ma jirto telefoon ayuu ku yiraahday Donald Trump baan kaala hadlayaa It's like muslimiinta adduunka oo dhan nacalad bay dusha ka saareen Soomaaliland waxaan xasuustaa iyada oo ay SSC qaatuma jigjiga armaheed ku saabsan groupkii shaqada qabanayay oo Jamaal ka mid yahay Jamaal ugama jeedo meeshan halkan waa in ninkaas loo dhiso taalo in looga dhiso weeye laascaanood shaqada uu qabtay iyo abaabulku qabtay iyo waxyaabo badan uu qabtay give a round of applause for Jamaal ma joogo laakiin gacan loo taal kadib haddana guux bilaabmay oo dowlad deegaankii la weeraray la yiraahdo raggaas meesha jooga ha la xirxiro iyo waxyaabo la mid ah raggii shafka u garaacay waa anagoo dowladda Itoobiya ku niri haro raggaas ina taabataan marka waxaan qabanay waxa kale ta iska dhaaf ma sheegayna hadaan sheegno waa lagu kala kacayay waxaan qabanay ta ugu yar waa taas aan soo gudbo meel kale oo idanqanaysa oo raba inaan taabto waxa weeye dadka la leeyahay waxay u socdaan oo tegayaan Somaliland kuwan ugu yeerin dabaqoodiga idinkuna u taqaanaan horgalayaasha kuwaas oo fariinteeda dhageysta waxa laga wareystaa ninka biyaha salkiisa jooga salkiisa ninka jooga ayaa laga wareystaa ceelku siduu yahay inuu qoyan yahay inuu qalalan yahay ceel qalalan haddii aad daan isku daydina ka qaadatid wax biyo ah oo ka helaysid ma jirto ragga maanta cunsurigii ugu darnaa ee jiray wax ka doontay Israa'iil inaan taabtaan doonaya hadalkana waxaan doonayaa dhammaantiin inaad fahantaan Israa'iil oo Benjamin Netanyahu maanta uu xukumo laakiin haba yaraatee iban 10% dadka Israa'iiliyiinta aynan doonaynin baba oo xukunka ku soo noqonaynin xabis nagalaya ninka 10% boqolkii ugu dambeeyay aanan ku soo noqonaynin xabis nagalaya ayay ka raadsadeen wax telefoon ayuu ku yiraahday Donald Trump baan kaala hadlayaa It's like adiga oo shaqa ma taqaanaa Garaad soo dhahaya waniyo Xasan Sheekh wasiirnimo iga shaqan meesha tiyo kale to Donald Trump baan kaala hadlayaa ma taqaanaa hadduu Ilaahay yiraahdo wax walbana way hagaagayaan markii uu tagay meeshii la dhahayay Jerusalem iyo Tel Aviv muslimiinta adduunka oo dhan nacalad bay dusha ka saareen Somaliland nacalad bay dusha ka saareen muslimiintii oo dhan Somaliland yaa la kulmay marka Somaliland madaxdeedii markay tageen yaa la kulmay baarlamaankii leadershipkoodii lamayna kulmin waxa kaliya ta oo la kulmay waa Netanyahu iyo qolyo businessman ganacsata ay wax la mid ah baarlamaankii lama horkeenin heshiiskan uu sheegayaan wax walbana afkii weeye soo nin dawladiisii dhacayso xabis ku socda adduunkii oo dhan ay gooni u dhigtay rajo ka raadinaya yaan dadka la lugoynin walaalahayna SSC khaatuma ama khaldaman Waqooyi Bari jooga wadankooda iyo deegaankooda hadistaan fariintayda marka ku socota walaalahay aad u malaysid dadka qaarkiis inay kala qaybsan yihiin laakiin waa arinta halganka ka midka ah waxa weeye niman yahow meeshii ugu fiicneed bay maraysaa halgan kastana caqabada ayaa soo mara kala qaybsanaanta wax faa'iido ah oo ay leedahay ma jirto laakiin haddii iyada oo mucaarad la isku yahay respect ha la isku sameeyo ha la is ciseeyo meeshii looga baahnaa way gaaraysaa
waxaan rabaa inaan idinku dhaho maanta sanad guurada koowaad waxay guul u tahay nad kaliya ma aha inay u tahay mataqaana waqooyi bari waxay guul u tahay Soomaali oo dhan waana ku faraxsanahay maanta inaan meeshan joogo isagoo igu sheegay wuxuu igu sheegay on left ah laakiin anigoo aan ahay nin qofkii heshiiskii Ethiopia iyo on left ninkii hogaaminayay oo aan in muddo ahna aan almost 2 sano 3 sano aan ku jirnay sidii nabad uga dhici lahayd deegaanka Soomaalida iyo Ethiopia sidaas oo tahay Jamaal iyo Garaad Jaamac iyo odayaal badan oo kaleeto 24 saac wayna soo wacayeen dawladda xiriirka hagaajinaynay wax walbaan isbuud ka dhigaynay heshiisyadana hoostaan ka wadnay wax walbana waan la soconaa ee dhacay waxa soo socdana waan aragnaaye baasha ha noloo dajiyo waa maasantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh